gaaraasha Itoobiya u baxo gaalka ka baxa dhalinyarada taariibi gurayaan sax dawladdiina waxa kama qabanayso waxa kale arinta wax message maxay dawladdu diraysaa Itoobiya weeye gawaaridan u baxaya qaloocan iyo wardheer iyo u baxaya weeye waxa musdawaqada u sameynaya marka de waxa dhalinyarada wala taariibina maxaa leedahay barnaamijkan gaaraasha Itoobiya u socdo dhalinyarada daldalayaan duqa degmada iyo gudoomiyaasha magaalada Gaalkacyo wax ka codsanayna in dhalinyaradeenna iyo dadka tahriibinaya in la ka qabto mideeda kale mustawaqadan iyo waxaan Itoobiya lagu sameeyay dhalinyartan tahriibinaya oo Itoobiya laga saaray gawaarida ka baxayso waxaan ka codsanaynaa duqa degmada iyo gudoomiyaasha Gaalkacyo in la ka qabto nimankan mustawaqada iyo waxaan sameeyayo dhalinyarta tahriibinaya magafana waxaan rajeynayaa insha Allah in dadkan tahriibinaya la ka qabto insha Allah wadankeena horumar haga Itoobiya weeye gawaaridan u baxaya qaloocan iyo wardheer iyo u baxaya weeye waxa musdawaqada u sameynaya marka waxa duqa degmada iyo gudoomiyaasha ka codsanayna in magaalada ay ka qabtaan dadkan gawaarida dhalinyarada musaafirinaya oo tahriibkan haddana dad bilaa matqaana musdawaqa iyo mustawaq loo sameynayo baarjeen in laga qabtaan insha Allah gaaraasha Itoobiya u baxayo waxa dhalinyarada ka xeenayo weeye dhalinyarada Gaalkacyo ka tahriibisay duqa magaalada Gaalkacyo waxa ka codsanaya dhalinyarada Gaalkacyo ka tahriibisay in laga qabto oo gaaraasha Itoobiya u baxayo waxa dhalinyarada ka xeenayo weeye laga qabto gudoomiyaha leeyahay dhalinyarada la tahriibinayo in laga qabto oo kuwa tahriibinaya hooyinka wata kuwaas ugu badan dadka tahriibinaya duqa degmada iyo gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaa tahriibiyaashan ku soo batay magaalada Gaalkacyo haddana dhalinyaradii qalbiga ka xaday ka xaynaya in laga qabto gaariyaasha Itoobiya u sameynaya mustawaqadan marka mustawaqadan maanta tirtiinaad qofka loo sameeyaa mustawaqa aqoonsiga lagu geenayo meeshu rabo marka dhalinyarada rabtay in aadana aan loo sameeynin oo adigi maalmo badan laga dawareejinayo ayana si fudud lagu sameeyo waxa leenahay laga qabto maamulka iyo madaxda u sheegay gaariyaasha Itoobiya u baxa marka si fudud baa lagu qaaday qaar baxda fili lagu qaada markii in laga qabtaan rajayna dhalinyarta waxa loo sameeyaa mustawaqo aqoonsi waxa lagu dhijinayaa inuu ninkan u socdo jaamacadii waxaasba duqa degmada dhamaan waxay mas'uulka degmada waxa ka codsanaa in laga qabtaan waxay dhalinyarada iyo waxa fuduulinayo tahriibinaya iyo dhamaanteen dhalinyarta waxa loo sheegay inta in easy tayo waxa la duufsanayo wax easy ma garateen marka degmada waxay mas'uulka ay duqa iyo waxmaantii waxaan ka codsanaa waxa naga qabataan gawaarida Itoobiya u baxa weeye oo waxa lagu kaxeynaya dhalinyaradii waxa idin haynaa arintaas waxa loo sameeyaa mustawaqo aqoonsi waxa lagu dhijinayaa inuu ninkan u socdo jaamacadii waxaasba oo wax oo kaxeynaya ninka dhalinyarada saas uu ku baxayaa marka waxaan codsanaa in laga qabtaan dhalinyaradaas gaaraasha Itoobiya u baxa oo Gaalkacyo ka baxa waxay guraan dhalinyarada taariibi dhalinyarada u gurayaan magafayaashii oo gaariyaal wata waxay ka adeeganayaan Gaalkacyo dhalinyaradiina magafa u geynaya dawladdii gobolka Mudugna waxa kama qabanayso waxa kale arintaas wallahi arinta aad uga xumaa ma garata dhalinyartii shaqo la'aan iyo baahi la'aan ba keenaysa gaaraashan u baxa Itoobiya waxay gurayaan dhalinyaradani oo taariib u socota waxa leedahay arinta gudoomiyaha gobolka Mudug waxa ka codsanaa ma artiin arintaas waxay ka qabto dhalinyarada maamulka gobolka Mudug inay gacan xoog ku qabtaan gawaaridaas ma artay lagu qaadayo shacabkeena iyo dhalinyarta lagu qaadayo waa arin saa'id u fiican aad iyo aad u fiican wadanka in laga tahriibo qabaa wadan maahan ha laga wada tagay inta ku nool baa tahriibto waxa ku noolba waa eber ha laga yaacay waxaan wadan maahan waa arin saa'id u fiican hal la tahriibiyo dhalinyarta Itoobiya sheegaysa Kenya hal loo tahriibiyo waa arin aad u adag dawladda iyo maamulka waxa message u diraya in dhalinyaradaas waxyaalaha ay ku mashquulaan loo qabto oo tahriibka laga celiyo gaaraasha taariib gurayaan gaaraasha taariib gurayaan gawaaridaasna waxa la yahay nimayo dhalinyarada halaagina dhibaatada ka daaya waxa wadaan musuqmaasuq oo dalka ku wadaan ka daaya inta safrin u diriyay gaaraasha Itoobiya u baxo Gaalkacyo ka baxa dhalinyarada taariibi gurayaan sax dawladdiina waxa kama qabanayso waxa kale arinta wax message maxay dawladdu diraysaa wallahi dawladdu taadiga shaqadeeda ahayd ma garat waxaan anigu yani wax riyada lagu eedayn wax riyada ceeb ma garat shaqadeeda ahayd gaf inuu Gaalkacyo maanta ka adeeganayo gaariyaal carruurta ku guraya kolay waxaan waxa fulinaya waa dad isaga u shaqeeya Soomaaliya magafa Gaalkacyo ma joogay مخلصين سوما دراش يتوب وبعد مقفل وشقيان عروضه ها ما يبابور تاني يقدر وبابور عادي وما تقنا استغراري يسوي ما قرأت لعبت ولا ودرن ما قرأت بل لكن ها نفس وارت بسياشنا قال كعي ماذا لا يرد قريان تهريب كأفكار نقضي قف كان قال كعلق كحيني إلى مقفل الجينيو
برنامج صدق قالك عكس سعودي دولتنا waa amsanta waxa kama qabanayso taa waa qalad way saaxib maana kowdhe marka saaxib taana waa qalad laakiin waxa keenaysa dawladda xumada waa keenaysa waxa uu sheegay dawladda Puntland waxa uu sheegay in ciidanka inay magafaa ay dhala soo qabtaan waa ay dhala way laakiin waa laakiin in sheeg